Koonfur Afrika sanadkan sii dhamaanayo gabagabada jooga oo dhan waxaa laga hadalhayay waxbaa la rajisgareynaa cunaa lagu dhintay dukaamada nadaafadooda hala fiiriyo waxaasoo dhan aada looga hadalhayay balse su-aasha taagan ee caawa inaan ka hadalnaa ama maanta inaan ka hadalnay rabno waxay tahay horta Koonfur Afrika iyadu ma tahay meel dadkeeda nadiif yihiin ayagoo nadiifiyin deegaanada dukaamada looga sameeyay suuro kale ma tahay meel la nadiifi karo horta inay tahay taas ayaan caawa rabnaa inaan isla faaqidno xaafadaha qaar aan tegi doonaa horta dadkuna waa dad qaxooti ah ayagaaba qaxooti ku ah dalkooda qofka horta ku dhahayo ilmaa liiga dilay ama waxbaa liiga dilay horta asaaba qaxooti ku ah dalkiisa sheekadaan isla fiiri doonaa dad waxaa waaye micnaha meeshay arkaan iska dhista sida qaxootiga kale xere iska degan meel musqul la-aan biyo la-aan marka dadkaas horta dukaamada agdooda ku yaala nadiif ma laga dhigi karaa waxaa xaqiiqa South Africa sharciyada ka yaala qaab waxaa kamid ah xaafadaha qaar dukaamo ma laga furi karo meel ganacsi loogu talagalay ma waayo waa ogyihiin dadkooda inay dad micnaha unclean yihiin oo dad wasaq badan yihiin waa ogyihiin meelaha qaar sharciyadan hadda soo baxo kale ma loo ogolaan doono in dukaamo laga furo xaafadaha extensionada iyo meelaha jiingadaha ka samaysteen musqulaha u lahayn banaanka iskaga wasaqda iyo waxa iskaga daadiyaan marka bal ninkaan horta fiiri doonaa bal wuxuu ka hadlayo iyo xaafadda sayta iyo muuqaalkeeda bal aan isla fiirino. I was in Kailita at Monobesi Park, so I was staying there. I lost my job because of a pandemic. So yeah, I came here and invading the land because I wasn't have a place to stay. I was homeless because where I was staying before, I was renting. So yeah, most of people who are here. It's the people who lost their jobs. It's the people who become homeless during the pandemic. So they invade the land, and we put the shacks because we saw the vacant land. inkastoo ujeedkeena uusan ahayn ninkaas hadalka uu ku hadlayo waxaas inaan wax iska weydiino maan ka hadalna haddana muuqaalka guud meesha uu ku nool yahay iyo meesha uu ka hadlaa ayaan fiirinayna oo meeshaas meelaha qaar dukaamada meesha ay ku yaalaan dad ajaanibta ay leeyihin meeshaas dadka jooga horta nadiif ma ahan isaga wax nadiifa loo gadaa ama wax nadiifa loo geeyaaba baabuur ma gasho musqulo ma lahan guryo ma lahan roob hadduu yimaado dadku gariida dhaadheer inay dhigdaan ku jiiftaan xitaa banaanka iskaga saxaroodaan iskaga kaadiyaan macnaha dadkaas waa dadka horta nadaafadooda in la sugal rabo bal videogan kale aan ku socono bal meeshu say u taalo weli This land, they didn't come here to provide or to give us anything. So we don't have nothing here. So the taps that you saw here, we installed it on ourselves. The electricity, we take it illegally. As you can see here, there is wires.